meeshaan hadda binaanbax waaye oo ruux ayaa la taagan yahay gacmaha aan kor u taagna inaad ilaahay weyno waxay ahay roob barakaysan oo ummadda ay ku kala degta inaad ilaahay nasiib runtii wax bini aadan ka soo baxay ama gacan bini aadan ku jiro ummadda kuma filna laakiin hal dhibac maanta haddii ay dhacdo waa la kala qabooba waa la kala degaa ummaddu waa kala degi marka culimmadan meesha iskugu imaaday oo meel walba ka soo safartay waxaan ka codsanaa in meeshaan roobdoon loo bedela oo yacni qur-aankii aan akhrinaynin roobdoonna aan ku darna gacmaha aan kor u taagna ilaahay aan barinna inaad ilaahayna soo qaboojiye insha allah ilaahay waxba kuma dhammo in maantadan maaragtay annagoo meeshaan joogno nagula bilaabo dhibacda ama roobka marka ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allahu inaad ilaahay deeqdiisa aadna siiy ilaahay waxba nooma weynin reer Madheerana waxaan u sheegaa waqti badan dhiig sabab laane ayaan daadinay waana ogsoonnahay annaga waa isognahay sababta roobka noogula diidaa waxaa ka mid ah annaga waxaa waaye qaladyo fara badan oo ilaahay aad raalli ka ahayn ayaan samaynaa waxaan inka codsanaa reer Madheera in la walaalooba oo maaragtay dhiig damba aan la daadinin oo ummadda marmar maaragtay khilaafa yaryar ayaa dhacaya inay dil ay naga gaareen meesha culumaa joogto odayaalaa joogo in waxaan rabnaa wax walba maslaxa ay ku dhammaadaan carabkii ilkaha ayaa marmar isku dhaca ummadda marmar waa leestaabanaa laakiin waxaa la rabaa in maaragtay ay naga gaarin dil iyo khilaaf iyo kala tag ilaahay aad maaragtay aad nooga caroonin annaga hadda waxaan arki hayaa arrintan aad u joodaan abaaraha faraha badan oo isdabagalay xoolihii dadkii intaa soo ruuxo waxaad arki 400 neefaan lahaa waa soo baaba'een hadda magaaladan ilmaha soo geli marka waxaan in leeyahay waxaan rabnaa arrintan inay noo noqoto maaragtay imtixaan iyo maaragtay barasho aan ilaahay u noqonno dilka aan joojinna dhibka aan joojinna dadka ay walaaloobaan dadka inay walaal yihiin ma shakeenkii ku jiro annaga embiyaalkayna 6 embiyo la soo doortay ku nominatedka senataga women rep dhammaan heshiisaan nahnay hal dhinacaan ka joodnaa reer Madheera inaan u shaqaynaa diyaar nahnay meeshii ay wax ka dhacaanna insha Allah meel ay noqotoba waan isla tagaynaa marka waxaan rabnaa inaan nidaamkaas annaga aan bilownay idinkan inaad naga qaadataan oo ummadda la walaalay ayaan rabnaa arrinta ma naga yeesheen arrinta ma naga qaadateen reer Madheera waa naga qaadateen soo maaha ilaahayna barakadiisu waa la heli doonaa midda kale oon ku soo dhammaynahay arrintan madrasada dhibka ay culummadu sheegayaan annaga waan fahansannahay waqti badanna waan ogeen sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi waxaan rabaa inaan kuu sheega sheekha waa sheekh adduweynaha laga aqaana weli carabta ma aragti zaa'id loogu xishmeeye waxaan rabnaa inaad fariintahay inaad gaarsiiso carabaha sababteeda annaga zamaani hore waqti hore waxaa jiri hay'ado muslimiin ah oo ma aragti ummadda saacidaysa oo Madheera joogto oo meel walba joogto dadkii iid ahaay faragelin iyo waxyaalo ayaa lagu sameeyay dadkii hadda nalama shaqeeyaan badana way tageen hay'adii iid ahaa marka yaa hay'ad noo ah marka dawladda Kenya badana diimaha iyo waxaas waxba kuma bixisa annaga muxsiniinta iyo dadka maaragtay oo xoolaha ilaahay aad sii ayaa madrasayaalkan aad u joodda ilaa hadda kala wada marka waxaan rabnaa in noola qayliyo oo horta muslimiinta masaacadadooda iyo gacantooda inayna soo gaarta madrasayaalka macallimiinta mishaarka loo kordhiyo imaamiyaha mishaarka loo kordhiyo mu'aadidiinta dadka maaragtay dhammaan oo diinta xambaarsan waxaan rabnaa waxay ku qancaan inay helaan insha Allah waxaa kaloo u sheegaa gaafanageena Maxamed Aadan Khaliif waan ogsoonahay shaqo badan aad wadaa culimmadan hadda wax badan ayaad ka wadaa saad kursi u soo galay in arrinta iida aad ku baraarugsanaada sidii madrasayaalka insha Allah macallimiintooda iyo dhismadooda inay dawladdeena ay wax ka qabato ayaan rabnaa annaga embiyaal haddaan nahnay insha Allah waxaan isku afgaranay galaasyaha madrasayaalka maaragtay wixii ka laaban integrated schools waxa la dhahaa ayaa beriyahan jira CDF hadda waa la soo daynayaa marka la soo daayo madrasayaalka waxaan rabnaa inay maaragtay ay naga faa'iidaan macallimiinta iyo maaragtay dhismada iyo wax walba ay naga faa'iidaan haddii aan isku darsanna oon wax aan maaragtay aan qaybsanna wax badan ayaan bedeli karnaa insha Allah ilaahayna waxaan baryaynaa inaad ilaahay nala qabta waana haddii maaragtay niid fiican lahaay wax badan ayaa la qaban karaa culimmadana faatixada ha soo marta inaad ilaahay aad madaxda barakee
inaad culummada ilaahay noo barakee caruurta inaad ilaahay noo barakee